ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga tacsiyadeynaya dhacdadii foosha xumeed ee shalay ka dhacday aaga Ceel Baraf oo dhibaato loogu geystay xubno ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaarna maaragta meeshaasi ilaahay ku oofsaday qaarna ku dhaawacmeen intii dhimatayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad ha siiyo waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la wadaago ficilkaas cid allaale cidii geysatay in muddo 48 saacadood gudaheeda lagu horkeeni doono cadaaladda ayna ka shaqeynayaan dhammaan ciidamada qalabka sida iyo hay'adahooda cadaaladda ay ka shaqeynayaan waxaan rabaa inaan halkaan uga digo cid walba oo ku lug yeelatay ficilka noocaas oo kala ah inaysan ku harsan doonin geyga Soomaaliyeed iyada oo xura waxaan rabaa inaan halkaan sidoo kale aan uga digo qof walba oo qayb ka noqon kara ama ka noqday ficilada noocaas oo kala ah inay ka digtoonaadaan waayo annaga haddaan nahay qaranka Soomaaliyeed suuragal nooma ahan ciddaan doonna aan ahaano qabaa'ilkaan doonna aan ku kala magacawnaano in ciidamada qaranka la garaafeeyo ma yeelayno haddii Ilaahay yiraahdo